ku soo dhawaada barnaamijkeennii nuxurka buugaagta. maanta waxaynu ku soo qaadaynaa barnaamijkeenna nuxurka buugaagta buugga caanka ah ee Rich Dad Poor Dad, aabbihii faqriga ahaa iyo aabbihii qaniga ahaa. aabbaha qaniga iyo aabbaha faqriga waa buug laga qoray qiso rasmi ah oo saddex geesood ah oo dhex martay qoraaga buugga aabbihii iyo qoraaga wiil ay saaxiibo ahaayeen aabbihii. Robert Kiyosaki waa nin ganacsade Amerikaan ah oo asal ahaan ka soo jeeda Japan. Robert aabbihii waxa uu ahaa digtoor shaqaale ah oo lacag badan qaata, balse mar walba u muuqda mid nolosha ka cabanaya iyo waxa uu haystaa inaanay ku filay. halka wiil yar oo ay Robert saaxiibo ahaayeen uu aabbihii ahaa nin shaqaysan jiray, dakhliga uu helaana uu ka yaraa ka aabbihii, laakiinse nolosha si wacan u maamula. Robert Kiyosaki waxa uu isweydiiyey farqiga u dhexeeya labada aabe ee uu buugga ugu magac daray aabbaha faqriga iyo aabbaha qaniga ah. kadib markii uu weynaaday ee uu waxbartay, waxa uu ka fahmay labadii waalid ee uu ka qoray buuggan qodobadan soo socda. 1. waa maxay hanti? 2. farqiga dhabta ah ee u dhexeeya faqiir iyo hantiile. hanti waa inuu qofku aqoon u leeyahay waxa uu haysto iyo sida uu isticmaali lahaa. faqiir iyo maalqabeen waxa u dhexeeya waa habfikirkooda. tusaale ahaan, maalqabeenku wuxuu ku fikiraa sidii hantidiisu ugu shaqayn lahayd, halka faqiirku uu fikiro inuu shaqeeyo lacag darteed. Robert Kiyosaki waxa uu buuggiisa ku soo gudbinayaa 5 aragtiyood ee waaweyn. 1. dadka saboolka ah iyo dadka noloshoodu heerka dhexe tahay inay u shaqeeyaan lacagta, halka dadka maalqabeenka ah ay lacagtu u shaqayso iyaga. tusaale ahaan, waxaad arkaysaa dadku weydiinaya halkeebaa laga shaqeeyaa, sidee cid loogu shaqeeyaa, taasoo macnaheedu tahay sidaan shaqaalo u noqdaa si aan lacag u helo. halka taa cagsigeeda, dadka qaniga ah ay ku weydiinayaan waxyaabaha caqligooda ka guuxaya ama fikirkooda ku jira, sida inay ku weydiiyaan sidee shaqo loo abuuraa, sidee u noqon karaa qof shaqo samaysta. qodobka 2, muhiim maaha inta aad lacag shaqayso ee waxa muhiim ah inta aad lacag kaydiso. tusaale ahaan, lacagta ku soo gasha waxa kugu habboon inaad qiimayn karto sida aad lacagta ugu qarashgarayn lahayd wixii muhiim kuu ah wixii soo hadhana aad meel u dhigan lahayd. qodobka 3, dadka maalqabeenka ahi waa kuwa caqli ahaan ku tiirsan maalgashiga, halka dadka saboolka ah ama noloshooda heerka dhexe tahayna ay ku tiirsan yihiin hantida lafteeda. qodobka 4, caqliga maalku waxa weeye sida aad u isticmaasho markay hantidu ku soo gasho, sidii aad u bixin lahayd si caqli ku dheehan yahay si ay hantidu kuugu shaqayso muddo dheer. qodobka 5, hantida ugu muhiimsan ee aynu leenahay waa maskaxdeenna. sida uu tilmaamayo qoraaga buuggu waxa uu leeyahay, waxaad arkaysaa qof aqoon badan leh, nolol ahaanna guulaystay, laakiinse jaahil ka ah dhaqaala samaynta. taa waxaa saldhig u ah sida ay tahay hadba garaadka dhigashada qofku, amaba sida uu u isticmaalo garaadkiisa marka ay timaado dhaqaale abuurid iyo dhaqaale kobcin.